Warar dheeraad ayaa ka soo baxaya diyaarado dagaal oo xalay duqeymo ka fuliyay xarumaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin deegaano ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Duqeynta ayaa la sheegay inay ka dhacday inta u dhaxaysa Sablaale iyo Ambareesa oo ka tirsan gobolka Shabeellada Hoose. Saraakiil ka tirsan militariga Soomaaliya ayaa sheegay in lala beegsaday duqeynta xarun Al-Shabaab dadka ay ku tababaraan oo ku taalla inta u dhaxaysa Sablaale iyo Ambareesa ee gobolka Shabeellada Hoose. Sidoo kale saraakiisha ciidanka xoogga ayaa sheegay in duqeynta lagu dilay saraakiil iyo dagaalamayaal ka tirsan Al-Shabaab inkastoo ilaa iyo hadda aan la ogeyn khasaaraha rasmiga ah ee soo gaaray Al-Shabaab. Dowladda Mareykanka ayaa bilihii u dambeeyay xoojisay duqeymaha ay la beegsanaysa xarumaha Al-Shabaab ay ku leeyihiin koonfurta Soomaaliya, iyadoona sheegtay in khasaare lixaad leh ay u geysatay Al-Shabaab isla markaana ay ka dishay saraakiil iyo dagaalamayaal badan oo ka tirsan Al-Shabaab ayna ku burburisay xarumo ay dadka ku tababari jireen, qaarna ay ka soo abaabuli jireen qaraxyada iyo dagaalada ay kaga soo horjeedaan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidanka Midowga Afrika. Al-Shabaab ayaa inta badan aan ka hadlin duqeymaha la sheego in loo geysto iyo khasaaraha ka dhashay intaba. Maxamed Macalin Mustafa, Kalson TV.
muqdisho.